iyadoo saddexdii bilood ugu dambeysay jabhadda la magac baxday Cawaale ee xoreynta gobolada Awdal iyo Salel ay ku jireen bariga magaalada Boorama ayaa waxa maanta markii ugu horeysay jabhaddu ay la hadashay warbaahinta isla markaana waxay fariimo kala duwan u direen xukuumadda Soomaaliland iyo waliba sidoo kale shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Boorama waxayna yiraahdeen geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishay geedka habo ku gabraaratada gumaysigu ku dhuunte galabtada xumootay geedkood habo inana waana qaan noloshana waana qaana waad garanaysaa raggii kugu helay geed ballaadh baan ahay anigu ama kunna xama ku farax amba bacdaanayaan bixiyay nololinay maahan ku dhimanaya ilmahaygu ha u aayo waddankaygana waan qabaxnay diyaar baan u nahay shacabka reer Awdalna ha urursadaan war wixii ajaabinimo iskaga baxo digniinta waan siinay dhulku woon kadaya baan ku cirkuna woon kadaya wuxuu dhalanay Ilaahay og dhimasho waxaana inuu galnayna ma jiro hadday iskugu kaaya yimaadaan adduunka anagu Awdal waana ma baxnaanku ilaa ninka u dambeeya dhinto caruurta dhaaway aydo halkan waxaan kaga hadlaynaa annagoo ah jabhadda Cawaale xoreynta gobolada Awdal iyo Salel waxaan ka hadlaynaa markaa sistem xumada iyo beenta iyo khayaanada naloola dhaqmay waxa way wadanka marxalado fara badan buu soo maray marxaladaha faraha badan leh waxaan lagu heshiiyey in wax la wada leeyahay oo dawlad Soomaaliland la dhiso dawladii markii la dhisay ee la tafaqiyay tabatira waxay noqotay dawlad Sacad Muuse noqotay dawlad Sacad Muuse ayay noqotay waxa way waxaan wada yeelanay iska daaya wixii aan anagu xaq u lahayn iska lahayn yadadii ah baan kala baxsan weynay sida dhulka wajaale waxa way haday mashruuc ayagii tahay haday dhulkii danta guud aanu bixinay iskuulada ahay tahay wixii aan anagu xaq u lahayn ayaanu kala baxsan weynay waxaan wada yeelanay oo kale iska badaa marka waxaan go'aansanay waxa way dawladda Soomaaliland maanta isku sheegaysaa waxay ku baxday 7 nin oo SLM ayaa baxay waxa way halgan bay galeen oo wadanka way qabsadeen hadday qabsadeen dabayaaqadii dabadee ka xumeeyeen maantana waxaan wada yeelanayna ma jirtay yaana aan nagula yaabin sida ay u baxeen baan annaguna u baxan wixii ay tawdeen baan tabanay adduunkana rag waxa ugu nacasan ninka wixii uu isagu diiday rag ku daya ee ila waan kugu dhaqaya marka ma yeelayno wixii uu diiday Muuse Bixi uu halka ka abaaniyay maxamuuden obsiye geela uu abaaniyo xabashada ka abaaninay ee halka shirki qaxa uu tagay ee halka uu ka tagay awaare wixii buu annaga maanta nagula dhaqmo lagu dayay inuu nagula yaabana ma bixidayada inuu soo farageliyana ma hadduu soo faragelino ku goon doona waxaan hadalku soo gabagabeynaya jabhadda Cawaale halganka maanta ay bilowday ku ay dhul u dhacaysa maaha waxa way wadankana waa la kala leeyahay haddaan isku dan noqon wadaan isku muuqaf noqon weyn waxa way gobolada yada annaga ka talnayna degdegna noo dhaafan haddii kale wixii maanta ka mid may Soomaaliland haddaba wax la wada leeyahay sidaas ay ku ahay dadka maanta halka u baxay ee dhibaatooyinka loo geystay halka u taagan ee maanta ka halgabaya gacan baan ku siinaya ururka waan la socdaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tobantahay bishii waxaa naga go'an inaannu nahay jabhad mucaarada oo ka dagaalamasa Awdal iyo Salel yaa naga go'aana maanta laga bilaabo Soomaaliland annaga markii hore ogolaasho annu jecelahay baanu Soomaaliland kaga mid ahay maanta waa la nacsiyo waa la nagu kalifay gobol kasta wuxuu leeyahay mujaahidiin ayuu leeyahay gobolada Soomaaliland la yiraahdo dagaalo kala weecsan bay soo galeen mujaahidiinta gobol aan mujaahid ahayn ma jiro gobolka Awdal mujaahidiintii soo wax doonaysa maanta koowa way nagu kaliftay waxa naga wakiil ahaa salaadiin odayaal aqoon-yahan albaabada laga xidhay
inuu taaba galay hawlna gelayo ta kale waxa weeye waxay noqonaysaa in cid kastiba wixiiga raadsato haddayna ku mid ahayn Somaliland sidii loo aasaasay haddayna u soconayn madda labaad waxa weeye qabiil yar oo habar wal la yiraahdo qaybsada wasiirka maaliyadda ka duulista mid wal oo shaqaaluhu waa laba qaybood bay isku leeyihiin Somaliland iyaga iska wadanay waxa weeye dadka kale waa qola ag taagan iyo nin eeganaya waxa weeye marka nin waliba wuxuu u baahan yahay inuu qabsado weeye haddii laga qaadan waayo hawsha imika la qabo waayo hawsha aynkaas oo aan la iskugu yeeri waayo dadka Somaliland godkay ku dhacday ninka markii hore diidayay khaladaadka diidi jiray markii horeba ka baxay khaladaadka maanta inuu dadka ku ugu cagajugleeyo khaladaadku ka baxay oo uu dhibta uu geystay maantana dadkii ugu yimid meesha uu geysto waxa weeye qofku markuu wax soo maro inuu wax qaataa loo baahan markuu dhib soo arkay inuu dhibta qaataa loo baahan imika dhibna qaadan maayo waa nin qol ku jira oo qolnimadii uu imika ku nool waxay u baahan tahay marka inuu siyaasadiisa ay furfurbi lahayd ma furfurni albaabku sixir wuxuu noqonayaa nin reer kaliya taw taliya madaxweynaha imka jooga wuxuu noqonayaa nin cid kaliya ta dhageysta wuxuu noqonayaa cid kale ba dhageysan iyaga mooyaan waxay noqonaysaa cid kastiba inay wixiiga raadsato